waxaa lagu warramayaa in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu shalay ku amray wasaaradda difaaca Mareykanka inay bilaabaan diyaarinta wax loogu yeeray talaabo military oo suurtagal ah in Mareykanku ka fuliyo gudaha Nigeria kadib eedeymaha galbeedku dalkan u jeedinayeen ee la xiriira in si daran loogu xasuuqayo dadka haysta caqiidada Christianity-ga. Trump oo tilmaamay in dowladda Nigeria lafahanteedu u ogolaatay beegsiga dadka Catholic-ga haysta ee dalkan ku nool ayaa sheegay in Mareykanku dhaqso u joojin doono kaalmada uu siiyo dadkaas haddii dowladda Nigeria sii wado ogolaanshaheeda beegsiga dadka Christianka ah. Trump oo ka digay wax uu ugu yeeray bartilmaameedsiga dadka Christianiska ah ee karaamada leh sida uu hadalka u dhigay ayaa tilmaamay inuu wasaaradda difaaca dalkaas ee haatan magaceeda loo bedelay wasaaradda dagaalka ugu yeeray inay diyaariso tallaabo suurtagal ah oo ciidan taas oo uu sheegay in haddii ay dhacdo ay noqon doonto mid ay ku tirtiraan waxa uu ku tilmaamay argagixisada beegsanaysa Catholic-ga. Ted Cruz oo ka mid ah aqalka Senatka Mareykanka ayaa horey u sheegay in dad ku dhow 100,000 oo Christians ah Nigeria lagu dilay ilaa sanadkii 2009 halka in ku dhow 20,000 oo kaniisadood la burburiyay. Ha yeeshee dowladda Nigeria ayaa dhaqso u beenisay hadalka Cruz oo ay ugu yeereen buunbuunin iyo waxba kama jiraan. Mid naadir ah ayaase ah in xitaa ururka ay ku midaysan yihiin dadka Christianiska ah ee Nigeria ay beeniyeen eedeymaha Cruz. Ururkan ayaa sheegay in qalalaaso amni xumo oo loo siman yahay ay ka jiraan gudaha waddankaas aysan jirin cid Christianiska gaar u beegsatay. waxa ay ku tilmaameen baaqyada ka imanaya galbeedka kuwo laga leeyahay dano siyaasadeed iyo farogelin dibadeed oo maslaxado huwan. marka laga yimaado eedeynta Mareykanka ah ee ah in dalkan lagu beegsanayo dadka haysta caqiidadan, haddana waxa dhab ah in Nigeria ilaa sanadkii 2023 waa markii la doortay madaxweyne Bola Ahmed Tinubu uu wajahayo qalalaaso amni xumo oo xadka weydaartay. in ka badan 10,000 oo qof ayaa la dilay 3 sano oo ugu dambeeyay, halka in ka badan 3 milyan oo qofna ay guryahooda ka qaxeen. xudunta qalalaasaha amni xumo ee Nigeria ayaa kala waqooyiga bari ee dalkan oo ay ka dagaalamayso kooxda Boko Haram iyo waqooyiga galbeed ee waddankan oo ay iyagana ka dilaaceen kooxo qowleysato ah oo dhaqdhaqaaqyadoodu dhimasho badan sababtay. inkastoo kooxaha loo tirinayo qalalaasaha amni ee sababay dhimashada dad badan oo Muslim iyo Christianisba leh, haddana Nigeria waxay u muuqataa inay dibane u noqon doonto duulaan uga yimaada Mareykanka oo salka ku haya eedeyn aysan xukuumadda talada haysa ku lug lahayn. Gimba Kakanda oo ah suxufi iyo kaaliyaha madaxweyne ku-xigeenka Nigeria ayaa laga soo xigtay qalalaasaha Nigeria waa kuwo wajiyo badan oo intooda badan salka ku haya xifaaltan isir, khilaaf dhuleed iyo mid dambiyo kale ku saabsan, kuwaas oo aan diin ku salaysnayn. warbaahinta galbeedkuna waxa ay ka dhigaysaa mid diin ku saabsan, runtu se taas ma aha.